degmada Baardheere ee gobolka Gadow waxa ay ka mid noqotay degmooyinka dalka ku yaala ee ka hirgelay baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ee ahaa ku dhiso isxilqaan dalkaaga. Baardheere waxa ku taala buundo muhiim u ah marinka magaalada taasi oo aan la'aanteed aynan cid isu gudbi kareen. Mudooyinkii dambe waxa ka jiray burbur aad u balaaran waxaana dayactir ka wada hadda dhalinyarada degmada Baardheere oo go'aansaday in ay hagaajiyaan burburka buundadan sida uu sharxayo Bare Shuuriye oo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baardheere. buundada weynada degmada Baardheere ayaa waxa ka muuqday ayaamahan dambe burbur aad u balaaran walow uu jiray dayactir ku sameysay dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo wali qabyo aha waxa dhacday marka meelihii la dayactiray oo la saaray birta hadda in muuqato la arkayo yaa waxay sameysay cracking ama dildilaac oo way kala foqday sababtan waxa yeelaya isticmaalka buundadii waa beesha kaliya halbowlaha oo macnaheedu degmada ismaasho waxa mar xoolo aad u fara badan baabuurtii ma garanaysa magaalooyin kale u kala gooshahay oo xamuulka aha sida awgeed marka culayska saaran awgiya waxay sameysay inay jajab iyo burbur sameyso tiida manay waxaan sameynay in aan anagoo dhalinyarada degmada ah in aan sameeyno isxilqaan iyo abaabulkaas oo ugu taragalnay wixii aan ka gaarno tabartayada in aan ku dayactirno degmadii buundadii sida awgeed hadda waa artaa shaqada way socotaa waa ilaa hadda waxaan ku jirnaa maanta inay 3 beritaan u maleen ilaa hadda 2 beri camal baa noo dhiman oo rabnaa inaan shaqada ay soconaysaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in ma garanaysaa tan hadda waxaan ka qabanay iyo xogaa bilooyin baa lagu moodiyaa macnaheedu wax permanent maaha waa xogaa waa celcelis weyn barnaamijka hadda aan wadno qayb kale waxaa jirta birtan ay saareen oo alwaax u saaran yahay oo burburtay oo xoolihiis mari karin dadkina uu mari karin oo laga dhacay hadda waan arki doontaan oo way idin muuqataa sida awgeed bulshadii iyo dadka deegaanka halka ku noolaa iyo dhalinyartii ugu horeysay yaa waxay sameeyeen isxilqaankaas oo lagu sameeynaya buundadii dadka ku sameysanayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka ay ku dhiirin doonaan isxilqaankii buundada kaliya meelo badan baa jiro oo lagu sameyn doono isxilqaan aan ku hagaajin doono buundada waa meesha kaliya oo marinka hal saac haday xiraato ama nus saac haday xiraato waa meesha ma garanaysaa qof waliba oo degmada ku nool way saameynaysaa sida awgeed anaga dhalinyar ahaan waxaan garanay ama ma garanaysaa aan soo joodinay aan isku howlnay barnaamijka inaan isxilqaan ku hagaajino alxamdulillah wayna noo soo rogashay haddana waa wadna waxa ma garanaysaa hadda anaga dhalinyartii iyo bulshada baan barnaamijkan sameynaya wax ma garanaysaa hay'ad gacanaga ma siinin maamul gacanaga ma siinin waa isku tashi ay ka yimid ugu horeeya dhalinyartii bulshadana ka yimid weey waan rajaynaynaa insha Allah in hadda qaybta naga dhiman hadda isku tashano inaan wax weey ka qaban doono waana ma garanaysaa waana ku wadnaa bacdal soon insha Allah inaan isxilqaanka sii wadno buundada kaliya maaha meelihii walba oo maartay burbursana oo danta guud ah inaan isxilqaan ku dhisno dalka anaga leh deegaanka anaga ma garanaysaa u dhalan oo joogno cid u maqan ma leh ma garanaysaa cid laga kale marka waxaan codsanaynaa anoo ku hadlay afka dhalinyarada degmada in ma garanaysaa dadka deegaanka u dhashay reer Baardheere ah ama dalka haday joogaan ama dawladda meel jiraanba in ma garanaysaa ay ku soo dhiiradaan barnaamijkan danta guud ah oo loo qabanayo bulshadii oo ugu horeysa buundadii sida darteed anaga ma garanaysaa ka dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay inaan kaalinteeda qaadano mar walba ma garanaysaa tan kaliya meel walba waxay u baahan guud ah in aan dhisno yaan diyaar u nahay. buundada Baardheere waxa ay hambowle u tahay marinka degmada Baardheere waxaana tallaabadani ay qaadeen dhalinyarada ay muhiim u tahay dadka deegaanka. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City Jawhar.